Hay'adda Anti-Charity Foundation ayaa soo gabagabaysay barnaamij looga hadlayay tacdiyada haweenka loo geysto iyo sida looga hortagi karo. Marwa Helga Seiler oo ah dhakhtarad haweenka ka socotay xarunta qorsheynta qoyska Hamburg, khibrad durugsan u leh gudniinka fircooniga, ayaa ka sheekaysay dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka ee ka yimaada Soomaaliya, Masar iyo wadamo kale. Madasha ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Hamburg, waxaana looga dooday ka hortagga tacdiyada haweenka iyo gudniinka fircooniga. Abwaan Shaakir Daahir iyo Abwaan Cabdulaahi Xasan oo ka mid ah hal abuurka ku nool Hamburg ayaa tix gaaban ku xabiray dareenkooda. Wuxuu oranayaa hooyooyinkeen waa laf-dhabar lama halleeyaan, inay lama huraan noo yihiin lama hilmaamaana, intay hibe qarsoon leeyihiin amase hoodooyin. Haddaan tiriyo kuma koobi karo hal iyo dheeraad. Lugahooda hoosaa jannada laga helayaayo, waana haybta aakhiro nasabad lagu hagaaga. Adduunyada halbowlay u yihin himilo insaane hadiyad weeye xagga eebbaheen nooga timi hil. Allahayow midii heer adduun horumar doonaysa, Allahayow midii himilo guur hayse u wanaag. Hawraarta maansada hooyada ka hadashaa tirahoodana weeyaan. Mahadraawi baan odhan marka aad nin hoolo gurigiisa habaqluhu isku soo haleeyo hayntiisa quudho lama hura dhashaabaa hooyo lagu xasuustaa. Gudoomiyaha jaaliyadda Hamburg, Liibaan Xuseen Doone, oo ka hadlay madasha ayaa tilmaamay in Jarmalka noloshiisu ay u baahan tahay faham iyo dulqaad. laakiin haddii laga gudbiyo fariin wada negative oo xun iblaayo la dilay iyo hebel baa la dilay, waxaa la moodayaa mararka qaar baa la dhahaa maanta Jarmalka dhaafay. marka dadka runta Jarmalka deganahay qofku wuxuu isiraadaa malaha Jarmalku ma aha wadan lagu noolaado. goorna dhaafaysaa bay weydiinayaan si fariimahan oo kale aan dadka ugu gudbino inteena soo dhafo social media isticmaalaya. fariinta noocan ah haddii aan social media keeno waxay dadka wadankan deganay ay aaminayaan in wadanka Jarmalka lagu noolaado. waxa weeyaan wadankan Jarmalka hadda muddooyinkan u dambeeya waxaad moodaa inuu sii xumaanayo. wadankan baan nimidnay inagoo dhalinyara oo waxaa la dhahdaa nin waliba singilsi yahay, waan ku reereynay, ubad baan ku dhalnay. walwalka ugu weyni hadda ayna haysaa waa ubadkaan ku dhalnay sidii loo badbaadin lahaa. Gudoomiyaha hay'adda Anti-Charity Foundation, Axmed Nuur Ibraahim Soomaali, iyo culimadii ka qayb gashay kulanka qaybtiisa koowaad ayaa soo jeediyey in laga fogaado wax kasta oo dhib u keeni kara haweenka Soomaaliyeed. rabshadaha sida loo geysto haweenka sida gudniinka fircooniga oo kale oo sanadihii ugu dambeeyay dad badan oo la dhibaatoonay gudniinka fircooniga ay Yurub soo galeen. Yurubna arrinkaasi qaati ay ka taagan tahay oo marka anaga waxaanu sameynaynay wacyigelin arrinka ku aadan, waxaanan dhiirigelinaynay gudniinkan xun ee gabdhaha la jarayo sida xun loo goynayo in la joojiyo oo maaragtay mustaqbalkoodii iyo ayooda lagu ciyaarayo in laga fiirsado oo la joojiyo. baan anagu culimadana baaqaas ay taageereen oo ah in la joojiyo gudniinka fircooniga. waxyaabaha dulmiga waxaa ka mid ah in gabdhaha gudniinka fircooniga iyo waxyaabahaas oo lagu sameeyo sababtoo ah waxay ka mid tahay waxyaabaha aan caafimaadka qofka u fiicnayn sida ay noo sheegeenba wasaaradaha caafimaadka iyo wix la mid ah. qofka noloshiisa mustaqbalkiisa aanan u wanaagsanayn, saameyn dhib badan xunna hadhow laga yaabaa in noloshiisa ay ku reebto. sida awgeedan diinta islaamka waxay u taagan tahay mar walba inay xoojiso, ilaaliso qofka sharaftiisa, shakhsiyadiisa iyo sidoo kale wax walba oo ka hor imaanaya caafimaadkiisa. sida awgeed culimaduna waxay noo sheegeen inay xaaraam tahay marna in aan la gudin. oo kale waxaan bogaadinaynaa waxay tahay in dumarka tacadiga loo geysanayo ha ahaato jir ahaan iyo maskax ahaan in bulshadeena ay ka fogaato, sababtoo ah ayaga ayaan ka imaanay, ayaga ayaan qiimo ku leenahay, ayaga ayaa jiilasha iyo bulshada soo saaraya. laakiin haddii lagu bilaabo markii dhashaanba in si qaldan loo gudo ha ahaato la dhaawaco yani xanuun ahaan lagu beero, taa waxay keenay waxay tahay in dhaawacaas aysan ka soo kabsanin. lidaalika waxaa mas'uuliyad weyn naga saara waxay tahay
in qof walba ku dadaalaya gabdhaha si loo ilaalin lahaa sharaftooda iyo jirkooda iyo maskaxdooda in garab la siiyo la istaago anaga dhammaantiin mashruucaas aan qaadan sababtoo ah gabdhaha way nala dhasheen ayaan dhaleen ayaga walaalihiina ayaga dhali doonaa birit insha Allah tacaala. haddaba haweenkii ka qayb galay madasha ayaa dareenkooda ku aadan ku cabiray sida wax loogu qaban karo tacdiyada loo geysto haweenka. عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام ما أنت شركة كسوق قبلنا حاجة جدنينك فرعونية ما دام الصومالي زائد وسعة جدنينك الصومالي قبلها قاد لو دبعتنا حاجة على هاي إن اللي بتوجيه إن شاء الله سسارة جينا. waxaan maanta kasoo qayb galnay barnaamijkii gudniinka fircooniga ahaa insha Allah waxaan rabnaa waalidiinta ku nool dalka Soomaaliya inay ciyaalkooda iyo caruurtooda hadda wixii ka dambeeya inay gudniinkaas aanan loola kicin and then wax tacdiyada aanan loo sameynin maadaama ay xanuun iyo waxyaalo badan ay kala kulmayaan intii hore inta dambena waxaa la rabaa inaanan waxba noola soo